السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا warka TV-ga Mayle. Warkaan oo diiray ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya la sheegay inta qarax ka dhig garahaasay oo ka dhimatay 4 qof meel kalena ka dhaawacmeen dad mas'uuliin ah. Markii ugu horeeyay qaraha jidka la dhigay ka dilay in ka yaraan 4 askari oo ilaalin hay'ad lama hilwaan hora hanasay oo ka dhaawacmeen qaraha hilwaanada oo la shalay Muhdiin Xasan Afra iyo Hussein Araale oo garahaasay la beegsaday xaafada Beehan ee degmada Shibis. Hadda dhaawayada mayl ka daawayay ee isbitaalka Degfer ee magaalada Muqdisho. Warkii isin kula socotaan TV-ga Maylan intaniinkeegii warkuun iyo warko kale intuun isla kulmaan mayba siin ku tabay sidaas yaman Allah.